garaad jaamac garaad Ismaaciil ayaa ka hor yimi riyadii ay ku hawlanaayeen beelaha dhulbahante in ka badan 15 sannadood waxaana uu sheegay inay noqon karin maamul goboleed ka madax bannaan Somaliland iyadoo ay caqabad ku noqotay shuruucda dawladda federaalka oo dhigaysa 2 gobol iyo wixii ka badan inay noqon karaan ismaamul madax bannaan xaqiiqada uu taabtay garaad jaamac garaad Ismaaciil ayaa waxa si weyn uga soo horjeeda firdhiye oo ku hanjabay in ceergaabo laga marin doono wadadii laascaanood laga mariyay Somaliland garaad jaamac garaad cali ayaa isaguna waxa uu ka sheekeeyay sidii ay Somaliland ugu awood sheegatay iyo jabkii uu soo maray inuu ka khudbadeeyo magaalada laascaanood ee xarunta gobolka Sool maxay u dabaaldegeen beelaha dhulbahante bisha koobaad 12keeda warbixinteennan ayaynu ku falaqaynaynaa qodobadaasi garaad jaamac garaad Ismaaciil ayaa sheegay inay si buuxda gacanta ugu hayaan deegaamadoodii ayna noqon waayeen maamul goboleed cid kale oo ay iskaashadaan haddii aan la helin ay tahay riyadani mid ay candhuuftooda dib uga liqeen garaadka ayaan sheegin deegaamo ka maqan oo laga haysto sidoo kalena waxa uu wajahay xaqiiqada rasmiga ah ee ka jirta gobolada bariga Somaliland isagoo ku adkaystay inay tahay xaqiiqo hortaalla oo aan lahayn meel laga maro iyadoo halgankoodii iyo hadafkii ay lahaayeen uu caqabad ku noqday shuruucda dhigaysa 2 gobol iyo wixii ka badan inay noqon karaan maamul goboleed waxaase uu sheegay inay tahay rajo u laaban gobolka ayaa hoostigi kara dawladda federaalka inkastoo aanu madaxweyne yeelan karin iyo ismaamul balse gobolka baro saabkiisa ayaa waxa soo magacaabaya madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya taasi oo fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho hadallada garaad jaamac garaad Ismaaciil ayaa noqonaya kuwa riyada ka toosinaya beelaha dhulbahante ee 3 gobol magacoodu uu ka turjumayo hase yeeshee ka degan 2 degmo oo kaliya balse weerahaasi kuwa ka hor imanaya ayaa ka soo yeedhay firdhiye oo ah hogaamiyaha jabhadda magaalada laascaanood fadhigeedu yahay waxaana uu sheegay magaalada ceerigaabo inay ku dambayn doonto wadadii ay laascaanood martay oo ay ka taagi doonaan calankooda taasi oo aanay ka nasanaynin habeen iyo maalinba inta ay hamigaasi gaarayaan garaad jaamac garaad cali ayaa ka sheekeeyay taariikh dheer iyo dhacdooyin ku duugan noloshiisa kuwaasi oo ka soo maray sidii uu magaalada laascaanood khudbad uga jeedin lahaa ama se ugu naaloon lahaa si nabadgelyo waxa uu sheegay in jigjiga shirqool ay Somaliland ugu dhigtay kaasi oo isaga iyo xubno kale oo doonayay sidii ay dagaal ugu soo qaadi lahaayeen magaalada laascaanood iyo gobolka Sool oo halkaasi shirka abaabulayay ay faraci dile kaga baxsadeen taliyaha ciidanka ee Somaliland oo markaasi joogay waxa uu sheegay nidaamka Khaatumo inuu mar kaligiis ahaa oo uu habeen xusayay isaga oo kaligiis meel duur ah jooga tanina waa riyo 15 sannadood in ka badan soo taxnayd iyadoo ay beelaha dhulbahante sheeganayeen 3 gobol iyo wax ka badan oo ku yaala bariga Somaliland sida magacoodu ka turjumayo se yeeshee markii ay gacanta ku dhigeen Taleex iyo Laascaanood ayaa la waayay 2 gobol ee kale iyo gobolkan barka kale ee ka maqan garaad jaamac garaad cali oo gala dagaalka loo yaqaano ayaa 2 degmo oo reerkiisu degan yahay waxa uu u haystaa inuu xureeyay daldhan isaga oo ku baanaya inay ka qabsadeen fariisimadii bariga gobolka Sool ciidamada Somaliland beelaha dhulbahante ayaa u dabaaldega 12ka bisha koobaad Khaatumo ahayd fikrad uu aasaasay Professor Cali Khaliif Garayd Allah u naxariiste markii dambena Somaliland kula biiray mabda'an ayaa marka la isku soo ururiyo aan ahayn maamul doon iyo midnimo doon balse waxa uu ku dhisan yahay sidii Somaliland aanay u tamariseen